عليكم أصحابتا كسو دوادا channelkayga waa Amuna Corner waxaa idin rajeynaya insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan qisada maanta waa qiso aad u xanuun badan laakiin nihayad oo maxay fiican bay leedahay waxay ku tusinaysaa dulmiga qofka maxay ahayd dulmiga markii lagu xiro 37 sano ninkan dulmi lagu xiray qisada aad u xanuun badan waay laakiin nihayadeeda insha Allah ku farxin doontiin hadaa taa qof jecel qisooyinka iyo dhacdooyinka runta ma jecel maxay miisaan dhimis iyo diet labadaba channelka waa ka helaysaa marka subscribe ka taabo gambaleelka furo hana ilaabin like iyo share asxaabtaada inaad la wadaagtid qisada maanta idin bilaabaya 1983 hooyo gurigeeda joogto maxay albaabka lagu soo garaacay naag cadaan bay ahayd Mareykanka wilaayad Louisiana bay ahayd gobolka Louisiana Mareykanka albaabka lagu soo garaacay markii albaabka lagu soo garaacay albaabkii bay furtay waxay aragtay nin oo maxay ahayd waraaqado iyo waxyaabo wado maxay ahayd inuu yani wax ka gado amal isla markii ninkii way ka cabsatay albaabkii damacday inay ku xirto laakiin ninkan xoog buu soo galay albaabku ku soo furay naagti kaligeed bay ahayd marka naagti buu xumeeyay meeshuu ku kufsaday markuu meeshu ku kufsaday wuxuu galiyay toorey buu wato galiyay ilaahay amarkiisa naagtan maxay ahayd markuu tooreyda galiyay may dhiman ninkii laakiin gurigu ka cararay markuu gurigu ka cararay askartii baa maxay ahayd ay loo imaatay meeshii askartii bay u yeeratay askartii markii imaatay naagtan maxay ahayd waa la waday maxay ahayd markii la daaweeyay kadib waxaa la isku dayay maxay qofkii maxay ahayd oo saas u galay inay tilmaanto dabcan qofkan qof xabsanay bay ahayd oo maxay ninkan xoog buu maxay kula dhaqmaayay marka tilmaam aad u badan may keenin markii la tilmaantii ay keentay askartii waxay soo hor istaajisay intaas oo qof maxay ahayd oo ka soo dhaxbixi qofkii oo saas ku yeelay marka askartii markii ay soo maxay ahayd dadkan ay soo hor istaajisay naagtii way garan weyday qofkii laakiin yani xoogaa shaki baa ka galay nin ku jiray maxay ahayd safkii oo maxay ahayd mujrimiintii meesha la soo hor istaajiyay marka naagtii maxay ahayd askartii waxay damceen dabcan askartii waxay rabaan shaqadan iska qisadan maxay ahayd yani qadiyadan in iska xiraan naagtii waxa la dhahay ninkan mu ahaa marka waxay damceen naagtan inay maxay ahayd ku program gareeyaan naagtan yani ninkan ma u malaysa marka waxay dhahday naagtii ninkan wuu egyahay laakiin nin ka dheer buu ahaa ninkan nin gaaban buu ahaa ninka laga sheekeynayo nin Archie Williams la dhahayo waay markaas 22 jir buu ahaa 83 markii ahayd arrintan dhacday marka askartii waxay yani markaas ninkan wuxuu ahaa wiil yar iska ahaa oo madow marka waxay isdhahaan ninkan qadiyada asaga ha loo saaro sida qadiyada si iskaga xiraan marka naagtii maxay askartii pressure bay ku sameeyeen inay dhahdo ninkan waay markii ayadoo maxay ka shaki qabta markii dambe waxay iska tiri waayahay ninkan waay bay tiri inkastoo ay sheegtay dhahday ninkii maxay ahaado soo hajuumay nin dheer buu ahaa Archie-na nin gaaban buu ahaa waqtigaas 83 maxay ahayd ma jirin maxay ahayd taqadumka iyo teknolojiga hadda jiro waxaa jirtay maxay ahayd ninka markuu naagtan maxay ahayd uu galiyay midida gacantiisa maxay ahayd dhiig leh buu meel taabtay marka waqtigaas ma jirin DNA iyo maxay ahayd horumarka hadda jiro ninkan waa la qabtay Archie Williams maxay ahayd waa la xabisay sijinka Louisiana lagu tuuray marka ninkan maxay ahayd wuxuu damcay inuu maxay ahayd yani inuu isdifaaco laakiin wuxuu ahaa wiil yar oo madow lacagna ma haysan marka lawyer fiicanna looma qaban marka waxa lagu xukumay maxay ahayd nolol forever baa lagu xukumay marka intuu sijinka ku jiray mar walba maxay wuxuu dhigi jiray aniga qof bari ba ah aniga waa la idulmay aniga maxay waa ma yeelin arrintan laakiin nin qof u dhageysanayo ma lahayn markii dambe 2019kii maxay ahayd qadadiis baa gadaal loo furay markii la furay asaga dalbaday in la furo markii la furay waxa la fiiriyay gacmihii maxay ahayd gacmihii raadkii gacmaha oo dhiig lahaa baa la fiiriyay markii la baaray waxa la arkay ninkan maba ahayn maxay asaga DNA-giisana maxay ahayd maba ahayn ninkan markii hore markaas ma jirin marka hadda 2019kii markii la ogaaday ninkan waa la soo daayay 37 sano buu xirnaa dulm buu xirnaa markii dambe la soo daayay waa tuu maxay ahayd oo barnaamijkan oo la dhahay America Got Talent buu soo galay wuu ka heesay sheekadiisa qisadiisa aad bay caan u noqotay dadka maxay aad ugu farxeen nin cod macaan buu ahaa waa idin soo gelinaya insha Allah aad aragtiin nin aad cod macaan buu ahaa sheekadiisa markuu ka sheekay dadku way la ilmeen way la calool xumaadeen qofka markii maxay dulun intaas uu soo galo dulun intaas uu soo maray laakiin muu samrin muu isdhihin maxay kama bixi doonto meeshaas laakiin muu maxay ahayd mar walba wuxuu lahaa maxay ahayd niyo iyo rajo in uu meeshan uu ka bixi doono
markii dambena maxay ahayd markii farihii la baaray maxay ahayd 2019 la baaray la ogaaday inuu maxay ahayd asaga ahayn oo lagu qalday dadkii maxay ahayd ka dambeeyay maxay ahayd dawladii way raali geliyeen anaga waa ka qaldan camal ninkan nin maxay ahayd sheekadiis aad caan u ah waa runtii hadda aragtiin waxa baranaysan qofka in maxay ahayd inuu sabro oo mar walba xaqiisa difaaco oo mar walba maxay ahayd inuu ahaado qof haddaad adiga xaq ku socotid حق محاهد مر والبابا هداه ومحاهد حق مباراة مر والبابا marka waxaan rajeynaa asxaabta inaan qisada maanta ka hesheen qisa gaaban ba ahayd laakiin qisad aad maxay oo aan ooga helay ahayd runtii qasooyin oo nihaayadooda aad u fiican tahay ay tahay qasooyinka qaar nihaayada aad bay u xuntaa laakiin kan nihaayada aad bay u fiicneed marka waxaan rajeynaa insha Allah like iyo share subscribe asxaabtiina la wadaaga ninka waxaa la dhahaa Archie Williams Arabka talent buu audition buu galay ilaa marxalada dambeeyso buu gaaray laakiin muu helin laakiin cod macaan buu lahaa qayr idin la jaamaan walba joogtaan assalaamu